gudoomiyaha gobolka Sanaag Aadan Diiriye Cigaal iyo maayirka degmada Cergaabo Mudane Ismaaciil Xaaji Nuur Faarax ayaa maanta si wada jir u dhagax dhigay waddo dhererkeedu dhan yahay 3 kiiloomitir oo ay hirgelinayso hay'adda maxalliga ee Kandhalaydi waxaana sidoo kale maalgelinaysa hay'adda caalamiga ee magaceeda loo soo gaabiyo loo yaqaan FCA Finland Charity Aid waxaana munaasabadii dhagax dhigaasi ka soo qayb galay mas'uuliyiinta maamulka heer gobol heer degmo saraakiil ka socota hay'adda Kandhalaydi iyo mas'uuliyiinta hay'adda Kandhalaydi ee gobolka Sanaag iyo xubno kale waxaana madashaas ugu horreyntii halkaasi ka hadlay madaxa hay'adda Kandhalaydi ee gobolka Sanaag Xasan Cali Diiriye ayaa isoo ku dheeraaday waxqabadka hay'adooda dhinacyada adeegyada aasaasiga ee waxbarashada caafimaadka iyo deegaanka waxaana sidoo kale uu sheegay in barnaamijkan uu yahay mid bulshada shaqo abuur loogu sameynayo waxaa isaguna halkaasi ka hadlay maayirka degmada Cergaabo Ismaaciil Xaaji Nuur waxaana hadaladiisii ka mid ahaa sida tan waxaa dhinaciisa halkaasi ka hadlay suduwaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare gobolka Sanaag Anisa Alxaaj Xasan ayaa isaguna dhinaciisa tilmaamay inuu ka marakacayo waxqabadka mugale hay'adda Kandhalaydi ka fuliso gobolka waxaanu guurba joogta ugu baaqay inay gacan mugle ay ka soo geystaan sidii ay u horumarin lahaayeen gobolka waxa gabagabadii munaasabadaasi soo afmeeray gudoomiyaha gobolka Sanaag Aadan Diiriye Cigaal ayaa isaguna geestiisa ku dheeraaday waxqabadka xukuumadda Soomaaliland waxaanu sidoo kale soo dhaweeyay mashaariicaha horumarineed ee gobolka Sanaag ee ka fuliso hay'addan Kandhalaydi isagoo shacabkana ugu baaqay in iyaguna gacan mugle ay ka geystaan amaha markii ugu horeysay hay'adda Kandhalaydi barnaamijyo horumarineed ee ka fuliso gobolka iyadoo ka qayb qaadata dhinacyada horumarinta waxbarashada caafimaadka deegaanka waxaana uu barnaamijkan noqon doonaa mid ay bulsho badan ay ka faa'iideystaan Ali Aadan Daahir on Cable TV magaalada Cergaabo.